dhaawacaya iska ilaali maxaa kuugu kula sii xiriira wala khaluufu fami saa'imi inda allahi adyabu min riixi lmiski qofka sooman afkiisa waxyaalaha saaran alla agtiisa miskiga carabtiisa way uga odayg badan yihiin buu yidhi khaluufka waxaa la yidhaha qofka markuu sooman yahay naabta iyo waxyaalaha ka saaran ilkaha dadka qaar waxay khaluufka u qaateen in loola jeeda yaan la cadayanin oo qofka sooman u cadayanin haddii 6 saac la gaaro rasuulkan axaadiis saxiixa looga hayaa salaad walba u cadayo iyo wasaqaad walbana cadayo salawaatullahi wasalaamu calayh marka dadka khaluufka u haysta caday la'aanta in loola jeeda aad bay u qaldameen khaluufka waxaa loola jeedaa qofku markuu gaajoo yahay daa'iman ilkiisa way isbedelayaan iyo furrihiisa laakiin lagama hadlayo wasaqda afka ku jirta waa in qofku cadaydaa bal marka aad dukanaysa daa'iman soo cadayo xadiis oo albaani ku saxiixinayo yani saxiixu targhiib wa tarhiib muxuu ku leeyahay rasuulka sala allahu calay wasalam wuxuu yidhi qofku markuu salaada dukanayo hadduu cadaydo malag baa u imaanaya malaggu markuu adnaa lahu waa u soo dhowaan qofku hadduu cadayo uu yidhi yani malaggu muxuu samay adkhala almalag malaggu wuxuu afka u gelinayaa fii fami shaksiga afkiisu afka ku qabanaya qur-aanka uu akrinaya malagga calooshiisa ku dhacayaa buu yidhi sala allahu calay wasalam haddaadan cadayan agtaada unbu istaagaya afka kugu qabamayo oo afkaagu soo urayo waxaa la doonaya ilkaagu inay aadan yani afkaagu nadiif u yahay oo afkiisa uraynin waa inaad ku dadaasho afkaaga inaad cadaysid laakiin suxuurtii aad cunto badirada inay ku jirto ilkahaaga oo afkaagu uu si kala yahay aadna tira waan soomanaa subxaanaka